kalsoonidu waa waxa keena farxadda waa mar walba kalsoonidaadu ay hay tahay waa mar walba farxad dareemayso waa mar walba kalsoonidaadu ay hoos tahayna waa mar walba farxad ku yar tahay kalsoonida naftu waa bilowga iyo asaaska wadada saxda ah qof aan isku kalsoonayn meel ma gaari karo haddaba halkan waxaan kula wadaagi doonaa 5 qodob oo psychology ah oo dhisaya kalsoonida naftaada qodobka koowaad dhis labadaada waji maxaan ula jeedaa qof walba ay naga mid tahay waxa uu leeyahay laba waji waa midka koowaad waa fiisa koowaad ee qof markuu ku arko yani soo jiishada koowaad bal laha waa aragaaga sidaad u muuqato sidaad u jarato sida maxaa la yiraahdaa aad u socoto sida maxaa la yiraahdaa jirka uu yahay midabkaaga yani face waa kaasalla so face ka koowaad dhis kalsoonidaadu ay u siyaado يعني هدي محل هذا جركا وثني هاي أما جر ضعيف أدلاد هاي وحطوا بهان تاي إن تشيم كأدادو جركا وحبتك بدل كرتا يا ديدا يا وفق بنادم كاهي وكفر حسنان كرا وحي وإلهي وسي وكدجاي هدي إذا أتكلمت إلهي كدجاي وكفر حسنان كرتا لكن هدي أطلبت هاي إلهي كامل دجين أو جركا وأنت دايت يعطوني كرتا بروتين له جيمك ayaad gari kartaa muqahaga dhisi kartaa yani waxba iska bedeli kartaa laakiin hadii aad kaawanta ilaahay baa gaabiyo waxba iska bedeli kartid saas darteeda qodobka ugu horeeya wax weeyaan aragaaga sax sida ugu fiican u jaro labiska ugu fiican gasho waxa la yiraahdaa wax ugu wanaagsan meesha aad ka dareemaysid kalsooni la'aan iska dhis waxaan rajaynayaa inaad qodobkan aad fahantiin hadii yani waxa la yiraahdaa aad tartid لبس قربة عاد كشدت يا تكعبسنا يسا تتقال كرسون درو مش يقارن إني ما أنت وراحة أجرتو مقالده أوكي على مدوي كشتان كحيشون إنه حي كليه لا يجمع برنين إن محله هذا عنك شو حتى لو برنا وعادي ما حد كعبسنا يسا في الفري قلب كل بعض وحويان نفط هذا هراي وده هذا شيء يعني اسمه كرسونه ومركي يقول ليه هي وفقوا إنه نفتي أسجوا هجو aysan noqonin naftaada go'aamada aad qaadanaysid in qof kale ku saxo marwalba aad go'aan qaadanaysid haddaad meel maxaa la yiraahdaa aad saxan tahay yani way fiican tahay inaad dad kala tashatid laakiin haddii go'aankaagu aad u malaynaysid inaad saxan tahay ku dhaqaaq marwalba suugin in hiblaayo ku raacdo ama in hibil ku raaco yani noqo qof noloshiisu qaladaadka uu la kulmayo uu wax ka barta ha noqonin maxaa la yiraahdaa qof qaladaadka ka cabsada marwalba dadku wax weydiiya dadku maxaa la yiraahdaa aaminsan naftiisa aysan aaminsanayn yani waxa loo baahan yahay in qaladkaaga aad wax ka baratid britole waa saxaysa qasab waay si sax ah hadduu sameeyo ama si qalad u sameeynayba yani go'aanka asagoo ka soo aan la sugeyn mar walba yani in hiblaayo u saxdo ama hibil maxaa la yiraahdaa inuu meel ku diro yani ha sugeyn qodobka saxda waxa weeyaan ha tagin meel naftaada ay ku dareemayso liidnaan yani noqo qof maxaa la yiraahdaa ka fogaada meelaha aan naftiisa ku dareemaynin farxad waxyaabo aan farxad aan ku dareemaynin yani meelaha qaar fadhiisigooda la jirka asxaabta qaar haddaan farxad ku dareemaynin iskaga har ama iska jar waayo aadooyinka xun waxay ku keenayaan oo mar walba aad samaynaysid inay farxadda ka qaadaan ama inay kalsoonidaadu ay hoos u dhigto yani haddii aad su'aalahaan meel bulsho aad tagaysid aan ugu qiimeynaynin aad ku dareemaysid meeshaasi kalsooni daro stop iska jooji aadideeda yani marwalba isku day inaad tagtid meel qiimaha uu ku sareeyo qiimaha ku yeelanayso bilaad farxad dareemayso meelaha kala aada yani waxaad ku dareemaysaa kalsooni caafimaadkaada tam noqonaya yani waxaad noqonaysaa qof dhiiran qodobka afraad waxa weeyaan noqo qof isbedelaya maxaa la jeedaa qof isbedelaya يعني نقول قف isbedelaya haga dhagaalahan haday ahaan lahayd xaga maxaa la yiraahdaa caafimaadka jirkiisa ilmigiisa noqo adigu qof isbedelaya qof maanta meesha uu joogay aan joogaynin wili noqo qof maxaa la yiraahdaa maalin walba habeen walba wax faa'iidaya so isbedelku waxa uu ku siiya kalsooni hitaa weeraan ha ahaadan dharka aad gashanaysid haddii maxaa la yiraahdaa 3 sano 4 sano hal dhar kaliya aad haystid taasi waxay ku siinaysaa waxay ka dhigaysaa qof aan isku kalsoonayn yani way jiri kartaa duruuf laakiin
haddii aad awoodid waxaad u baahan tahay in maxaa la yidhaahdaa dhar qurux badan maxaa la yidhaahdaa aqoon aad korsatid maxaa la yidhaahdaa waxyaabo adigu aad ku batashid waxyaabo kale oo ka qiimo badan wixii hore aad u haysatay so isbeddelku mar walba oo isbeddel aad samaysid waa mar walba oo aad farxad dareentid kalsoonidaaduna ay zaa'id noqoto sidaas darteeda isku day mar walba inaad isbeddelka aad ku dadaashid isbeddelka dhinac walba ha ahaado isbeddelku waa muhiim qodobka ugu dambeeya waxaa weeyaan noqo qof basduq ah yacni noqo qof xagga wanaagsan wax ka eegaya mar walba maxaa la yidhaahdaa wax wanaagsan fisha yacni haddii maanta tusaale ahaan wax aad samaynaysid hadhiina waxaani ma suurtagelayaan yani taasi waxay hoos u dhigaysaa kalsoonidii wixii aad ku samayn lahayd kalsoonidaas hoos u dhacaysa so waxaad u baahan tahay in wixii maxaa la yidhaahdaa aad dhahdid I can do it natiijadaas ayaan ii soo baxaysa sidaasaan ka dhigaya saas inaad dhahdid rabaa so haddii maxaa la yidhahdaa tusaale ahaan aad game ciyaar taageeraysid ama adiguba ciyaaraysid waxaad u baahan tahay inaad dhahdid maxaa la yidhahdaa 10 gool baan kaaga badinaya halkaad aamusi lahayd يعني haddaad dhahdid qof 10 gool baa kaga hatta adigoo haddaad 10 gool lagaaga badiyo yani waxaad muujisay kalsoonidaaduna dee mar walba aad kalsoonida ka muuqatana waa mar walba oo dee karti laga dareemo geesnimo laga dareemo sharaf laga dareemo qof qiimo laga dareemo laakiin qof aan isku kalsoonayno maxaa la afsanaya soo dhan shaki badan yani waxaad noqonaysaa qof awoodiisa dhinac walba ka liita so sida aad isula hadasho aad bay muhiim u tahay mar walba inaad xagga wanaagsan wax ka eegto yani waxaad arkaysaa qof maxaa la yidhahdaa bulsho u dhex jira su'aal ahaan fikir baa qalbigiisa ku soo dhacaya mas afkaar buu hayaa afkaartii halkii uu ka gudbin lahaa wuxuu ku leeyahay hiblaayo amaysan dhahdaa hibil amuusan ku dhahaa midaas muhiim ma aha muhiimaddu waxa weeyaan in waxaan aad sheegaysid ay yihiin wax wanaagsan qof baa si wanaagsan u qaadanaya qof baa si xun u qaadanaya muhiim ma aha dadka oo dhan maxaa la yidhahdaa dadka qaar inay siday u fahmaan inaad kor iska saarto muhiim maahan dadka qaar siday u fahmaan muhiim maahan dadka qaar inay ku taageeraan ama inay maxaa la yidhahdaa ku dhiirigeliyaan muhiim maaha muhiimaddu waa inaad adigu wax wanaagsan aad sheegayso so that is the last rule waxaan rajaynayaa in shantaani qodob aad wax badan aad ka faa'iiday intaan muuqaalkiisa dambe aynu ku kulmi doono waxaan leeyahay nabadeed